casharkeena caawa waa formal greetings dialogue 1 yes yaa hadlay caawa waxaan qaadanaynaa book cusub oo daily speaking english ah maalinlaha english ma ustaadi englishka maalinlaha la dhaho waxaan qaadanaynaa dialogue 1 ama conversation 1 qof kasta si u taqaano hadduu ilaahay idmo ayaan qaadanaynaa okay qaybtaasaan qaadanaynaa so dialogue 1 formal greeting caawa laba cashira qaadanaynaa labada cashir waxay kaliyiin formal greeting iyo informal greeting qaybtan koowaad formal greeting aan ku qaadanaynaa formal waa waxa caadiga ah yes suad ayur seta ha glass lagu jira nagu soo biray okay waxaan leenahay markaa dialogue 1 waxaan ku qaadanaynaa formal greeting salaanta formalka waa waxa macnaha caadiga ah officialka ah waxa official waa fahmaysiin oo maleynaya waa waxa lisla yaqaano oo meelaha tusaale haddaad jaamacad tegaysid iyo haddaad shaqo tegaysid haddaad isbitaal tegaysid luuqadda ku hadlaysaa waxaa la formal luuqadda saaxiibka iyo qaraabada iyo ciyaar xaafadda kula hadashina maxaa lahaa informal war labada arrimood kala fahmaya waraaqaha xitaa markii la qoraayo waxay leeyihiin formal iyo informal waa u tegi doonaa waraaqahana waraaqda markii la qoraayo iyadana waa u tegi doonaa waxay leedahay formal iyo informal ay kala leedahay formal iyo informal ayay kala leedahay mid macnaha official ah oo formal ah iyo mid aan formal ahayn shaashada ma u jeedi kartiin sucaad soo dhawow dadka qurbaha jooga week endiska waxa waaye lagama mashquuliyo adi iyo sakari iyo waa wax kalaa ku mashquulsaneedeen aan umalaynaya maya waa ina soo waca xitaa si aan ii xasuusiyo whatsapp kuma soo dhicina umalaynaya laakiin group call waxa ladahaya sameeya marka ay kusoo dhawo insha allah caaw formal greetings marka waa waxyaabaha formalkaasaan ku sheegay waa salaanta casharka markaad fiiriso qaab formal ah laba qof laisku baraya ay isku salaamayaan qaybta dambena waa u tegi doonaa qaab informal ah ayay isku salaamayaan marka erayo badan inu kuma cusba just hal mar aan dul maraya kadibna qof kasta inuu noo dul maraan isku dayaynaa insha allah formal greetingka jamesa wuxuu barayaa professorka ayuu wuxuu barayaa emma saddexdaas qof waaye emma wax la baraya professorka la baraya marka intaa waa james good morning markii subaxii ay tahay ayaa la isticmaalaa everybody uu noo ogyahay qofka magaciisa inaad sheegtana waa muhiim good morning cali haddaa cali la hadlaysid iyo qofkaa la hadlaysid kabacdina su-aasha aad sii weydiisid that's next informal aa lahaa good morning professor aston how are you doing how are you doing in lesson 3 miya mise 5 aan kusoo marnay waxyaabaha la yiraahdo greetingska ama start of conversationska qaabka conversationka loo bilaabayo qaabka loo dhameynayo casharo hore aan kusoo qaadana wayna duuban yihiin good morning professor austin how are you doing sidee tahay professorka hadlo good morning uu dhahay sidoo kale good morning to una waa dhigi kartaa good morning waa dhigi kartaa qofka hadduu good morning ku dhaw good morning ugu jawaabi kartaa to haddaa ku dartana dhib ma lahan laakiin magaciisa inaad sheegtaa muhiim good morning james I'm doing well waan fiicanahay and you adigana iska waran I'm great waan fiicana thank you waa maasanta this is my friend Emma tani waa saaxiibadeyda and she's thinking about applying to this college waxay rabtaa college inay soo codsato applying markaad codsanaysid ama xareysanaysid documentska ama meel apply gareynaysid shaqo iyo wixii lamid ah markaad codsanaysid apply lahaa application waxaa lahaa documentska ama qaabka processka aad isticmaalaysid lahaa she's thinking about applying inay soo codsato this collegekan she has a few questions su'aalo yar ay qabtaa could you mind maxaad ka qabtaa telling us inaad noo sheegto about the processka qaabka loo soo codsado nidaamka loo maro processka wax nooga sheeg please fadlan professorka hadlo wuxuu leeyahay Emma hello Emma haye it's pleasure to meet you waa farxad inaan kula kulmo I'm more than happy aad ayaan ugu faraxsanahay to speak with you in aad kula hadlo please stop by erga stop keligiis waa istaag laakiin by raacday waan u tegi doonaa prepositionska
waxa la yiraahdo prepositionska oo adjectiveska markaa dhameeno arifab baa noogu xigta arifabka grammar ahaan qaabka loo isticmaalo stop by iga soo mar isoo mar my office xafiiskayga next week soo socda isoo mar haddaa yar qof saaxiibka aa dhihi karta pass by me meeshaa ka dhihi leed stop by me aa dhihi kartaa stop by me gurigayga soo hor istaag macnaha isoo mar pass by me na waa dhihi kartaa isoo mar okay it is pleasure to meet you sidoo kale war farxada ii tahay inaan kula kulmo professor thank you so much aadaa u mahadsantahay for helping us caawitaankaana caawinaysid don't mention it waxa waa ha ii mahad celinin waa isku leenahay soomaalidu waxay dhahaan waaye ha ii mahad celinin waa isku leenahay marka don't mention it ha magacaabin camal hadda meesha ku qoran tahay laakiin waxa don't thank me hopefully marka ha ii mahad celin waa hopefully rajo fiican ay tahay I will able to answer inaan kaaga jawaabo your questions su-aalahaad oo dhan inaan kaaga jawaabo that will be great ay noqonaysaa inay wanaagsanaato good waxaan rabnaa marka laba qof sucaado iyo sakariye bilow james aa tahay sucaadana professorka waaye nimcana ema waaye good hal marno english ahaan haddaad english ahaan ku dul mara kadibna waa kasii gudbayna insha allah okay good morning professor magaceed maashiyan sida cashiga ugu qoraan loo aqrinaa waa sheegi kartaa magaceeda dhimana haddaa ku bedelid magaceeda good morning professor Saada how are you doing good morning James I'm doing well and you I'm great thank you this is my friend Emma she think about applying to this college she has a few questions would you mind telling us about the process, please? Hello, Emma. It's a pleasure to meet you. I am more than happy to speak with you. Hey, نمعمي عادي ما قلت نمعه قالها يا بابا. No, professor ka adaa iskale aad wilito sucaada sii wadato eemay leedahay It's a pleasure to meet you, Professor. It's a pleasure to meet you, Professor. Thank you so much for helping us. Who was the professor? Shall I continue? سكريا نسينا سكريا صالح جملته مدة وقبل سكريا صالح نسينا سكريا ايه Yeah. the last one ايه أنا يا واي سكريا صالح عندها قيبته قدام بيسو حقاته بروفيسور قيبته قدام بيسو ها don't mention it is hopeful I will be able to answer your question thank you hal mida waxaan fiirinaynaa muhiim ah meeshan waa qaada doonaa waxa loo yiraahdo punctuation waxaa lahay full stopka comada iyo wixii lamid aha lahaa full stopka comma iyo everything else oo loo isticmaalaa lahaa soo marka tusaale good morning markaad dhahdid qaybta u horeysa James Ferry good morning waa inaad aamustaa commentia ku jira meesha comma ku jirto commadaas waa inaad istaagtaa Professor Aston waa inaad dhahdaa istaagtaa how are you doing question mark waa marka question mark afka lagama sheego meesha u dambeysaan arkay dadka aqrinay don't mention it aad leedahay waa aamusi hopefully waad aamusi ka bacdina waa si aqrinay waxaa laga rabaa marka haddii akhri lagu dhaho qaabkaad u aqrinayso inaad iska fiiriso haddaad aragto meeshay ku jirto waad istaagaysaa wax yar aad istaagaysaa kadib oo lifaaq wax yar oo hakadaad gelinaysaa hadalka kadibna horaa usii soconaysaa waan filayaa inaa intaa ila fahanteen waa kana shaashada qaybta dambe muu jeedin
qaybta sawirka saddexda qof hadlaysa waa kuwan qaybta ka hooseysa language notes aa lahaa ma rabo inaan aqriyo laakiin wax yar aan iftiiminaya language notice language notice-ka uma jeedin aada idinka yartaa laakiin sun waa dhaha kartaa waa ku iftiimina wuxuu leeyahay greetings the greetings in good morning good afternoon good evening are used in different times waqtiyada la isticmaalo saddexdaas barta good times of the day in greet people maalinka waqtiyo kala duwan ayaa saddexdaa la isticmaalaa good evening waxaa lagu leeyahay often at 6 aa la isticmaalaa pm wixii maqribka ka bilaawdo 6 pm wixii ka dambeeya good evening isticmaal when the sun side qoraxda markay dhacdo ku leeyahay hadalkaas afaan dhegeyso waxaad arkaysaa waxaa laga yaabaa casirka iyadoo la joogin qof good evening ku dhaho adduunyadu way kala duwan tahay laakiin 6 pm markii la gaaro special qoraxdu ay dhacdo waxaad isticmaalay good evening habeen waa fiid wanaagsan good night aa noogu dambeysa meeshaan nimca si fiican rabaa inaad u dhegeysato good night is not a greeting salaan ma ahan it is used waxaa loo isticmaalaa when leaving a place markaa dad meel ka tegaysid oo a group of people dad aad ka tegaysid waxaa la rabaa aa loo isticmaalaa tusaale nala siiyey thank you and good night see you tomorrow mujeedaan waa la macsalaameynaya good night marka iyadu salaan ma ahan laakiin waxaa loo isticmaalaa markaad meel ka tegaysid dadka jooga ama dad ka tegaysid inaad macsalaamayso ayaa loo isticmaalaa good night and see you tomorrow habeenku hanin wacnaado beriya is arkeena when people buga american wa when people meet in United States su'aada noo joogta halka oo information ka sii doona in customary often shake hands markay is salaamayaan gacmaha ayay is qabtaan and handshake should be a firm usually lasts for about 2 or 3 seconds 3 second ama 2 second wax la mid ah qaadataa gacanta in is qabto which all allows enough time to say nice to meet you inta nice to meet you dhaysa qof gacanta heena oo kaliya ereyga don't mention it is another way of saying you welcome hab kale oo aad ku dhahdo you welcome adaa mudan ayay macnaha noqonaysaa the phrase you are welcome is more formal aad formal u tahay and however response just don't mention it or no problem happy to help are formal always of responding to thank you erayadaas oo dhan saddexda ah don't mention it you no problem you happy to help you qofku thank you marka ku dhaw kuwaas oo dhan waad ku jawaabi kartaa oo waxay noqonayaan lagu yiri formal ayay noqonayaan qaybta labaad conversation 2 ayaan ku daraynaa waxaan ku qaadanaynaa informal greeting formal iyo informal farqiga u dhaxeeyaan rabaa inaan la fiiriyo oo si fiican qof kasta ay u barato inaad qofka how are you tiraadid magaciisa sheegtid good morning ama good afternoon aad ku bilaawdid waa habka formalka ah informal mu jeedin shaashada qaabka ay noqonaysaa isla fiirino conversation uu yiri yahay waa kana picture-ka qaybta ka hooseysa hadda fiiriya picture-ka dadka hadli doono waay qaybtan maxaa lahaa informal maxaa dhahaynaa informal ayaan dhahaynaa qaybta comment adoo iska ilaalinayo waxaan rabaa nimca noo bilaw akhriska qaybta commentiga qaabka loo aamusaayeen waa kuu sheegay noo akhri noo dulmar Hi Helen, how is it going? Fine, thanks. And you? Just fine. Where are you off to? Helen, to the library. I leave good a history exam next week. I need to start studying. Aga. Oh no. Well, I will see you later then. Good luck. Thanks. See you later. هاي سؤال okay Hi, Ellen. Hi, Ellen. How is it going? Fine, thanks. And you? Just fine. Where are you off to? To the library. I've got a history exam next week and need to start Saturday. Olga. Oh no.
Well, I will see you later. Then good luck. Thanks. See you later. Hi Zakaria. Hi, Helen. How is it going? Fine, thanks. And you? Just fine. Where are you off to? The library. I've got a history exam next week. I need to start studying. Oh, no. Well, I will see you later then. Good luck. Thank you later. Zakaria. See you later. Thanks. See you later. Zakaria ingina. Okay, waxaan rabnaa meeshaan cashirkooda taqaanay ereyada waxayna ku cusub ma lahan just informal meesha markii aan dhahnay hello qaybta aan isticmaalnay maanta waxaa noogu jirta hi so waxaad ogaanaysaa inay macnaha ereyada formal iyo informal inay kala baratid markaad qofkaa weyn la hadlayso oo ama qof aad official meel iskala shaqaysiin ama kaa sarreeya kaa title sarreeya waxaa lagu hadlaa formal language qof kaa title hooseeya ama kaa yarda ahaan ama agekaada ah oo same age aad tihiin ama ciyaar xaafad oo istiqaaniin markaad la hadlaysa informal aad isticmaali kartaa respect formalku wuxuu muujinayaa respect ama waxyaabo macnaha qadarin uu muujinaya so marka ereyga hi waxaa kasoo horjeerta hello qaybta hoose noogu qoran tahay how is it going ereyada mudmadow fiiri how is it going waxaa noo qoran waxa loo yaqaano how are you ayay kasoo horjeetaa fine thanks ayadana waxa waaye waa isla qaybtii aan horena waa kusoo aragnay labadaba way noqon kartaa macnaha labadaba way noqon kartaa formal iyo informal where are you going tufna waxa waaye where are you going formal ahaan markii lagu dhahayo where are you off to ereyga off to laba prepositional israaciy waa haddii lisfahmayo labada qof isku fahmaya waa informal waa haddii aad rabto si kale inaad u dhigto intee u socotaa ayaad leedahay where are you going to intee aadaysaa intee aadi where are you going okay anyway waxaan leenahay hi Helen haye how is it going sidee tahay xaaladda ka waran maxaa cusub waxaasoo dhan waxaa rabto waa dhigi kartaa fine thanks aada umahadsantahan you adigana iska waran justifying waan fiicanahay where are you off to where are you going intee u socotaa to the library I am going to the library firia I am going to the library meesha ka dhihi lahayd short and informal waxa waaye to the library haddaad rabto formal waxaad dhihi kartaa ama more information I am going to the library librarygaan rabaa maktabadda I have got ereyga I have got waan soo baranay short formka ereyga short form I have got waa laakiin hadda markaa aqrinaysa I have aa leeda I have got marka xitaa ayada way qariyaan dadka qaar have got ay dhahaan laakiin I have got aad iska dhigi kartaa I have toos mu dhigis I have got aa leeda isku qabanay laakiin ereyga I have oo ka imaada I have got a history exam waxaan leeyahay imtixaan oo history ah taariikha next week soo socda I need to start studying waxaana rabaa inaan sii barto studying inaan sii muraajaceeyo sii barto ereyga uhana iyo aga iyo waxa rabto ugu dhawaaqi kartaa dambana waxaa la yiraahdaa exclamation waxyaabaha la yaabka ah oo expresska camal ah la yaabka cajib calaamad cajibka camal loo isticmaalo Jane waxay dhahdaa oh no maya well I will see you macnaha inaan ku mashquuliyo ma rabi camal I will see you later then waa is arki doonaa good luck nasiibka ku wacnaado thanks see you later haydi baan iska aragno qaybta hoose fiir language-ka hadaad arki karto ereyga hi waa informal formalkiisu waa hello wuxuu ku tusinayaa hi-da qaabka loogu dhawaaqayo inay tahay waxaa noogu xigto how is going waa informal hab kale oo aad formal u dhigi karto waa how are you fine thanks you ayada wax cusub ku jiraan and you inaad raacisid waxaa la yiri the more information Helen is interesting what the change has to say qofka markaad wax aad xiiseen aad rabto inaad informationkiisa ogaato ayaa la dhahaa haddana waa in short qaabka su'aal aad u weydii karto qofku su'aal ku weydii
waad uga jawaabtay adiga waxaa rabtaa inaad su-aal ku celisid meeshaa su-aal kaloo weyn aad ka fikeri lahayd and you aad dhihi kartaa. Okay, where are you off to na where are you going waaye waana yes no question su-aal oo yes or no looga jawaabi karo waaye. More information lagu daro iska caadi. To the library waxay ku leedahay I'm going meesha ku dar lahayd to the library halahay. Oh no na waxa waaye xoogaa ereyga carabka in lagu adkeeyo waaye. I understand you are not happy macnaha inaada faraxsaneen camal ayay qofka u muujinaya inuu sii sheekeysay rabti gabadha information badan gabadha kasii qaadato laakiin oh no markay imtixaan u sheegtay oh no ay tiri way ka naxday kadibna saa see you later informal by goodbye see you later na formal keedka waa goodbye inaa qofki dhahay ayaa formal ahaan ayay u noqonaysaa. Okay, formal introduction iyo informal introduction next time qaadanayna insha Allah. Any question hadda halkaa ka jirto